daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka. Barnaamijka falaqaynta Bollywoodka waxaa ku soo qaadanaynaa xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Bollywood action hero Sunny Deol, balse jamaahiirtiisu aysan aqoon. Sunny Deol waa 60 sano jir haatan. waa wiilka uu dhalay halyeeyga Bollywoodka Tara Mantara, waana wiilka ka weyn lana dhashay atooraha caanka ah Baby Deol iyo adirishada Asha Deol. waana jilaa ku wanaagsan jilista jaceylka iyo dagaalka. 2 jeer ayuu ku guuleystay abaalmarinta Filmfare Awards. Kayaal ayaa ah filimkii ugu horeeyay ee ku muteysto in la guddoonsiyo abaalmarinta Filmfare Awards atooraha ugu fiicnaa sanadkii 1990. sidoo kale filimkan Kayaal waxaa adriisha ka ahayd Meenakshi. Kadar ayaa ah sidoo kale filimkii uu ku helay abaalmarinta Filmfare Awards markiisii labaad, waxaana adriisha ka ahayd Amisha Patel, wuxuuna soo baxay 2001. The Zee Cinema Special Award for the Most Outstanding Performance of the Year Male, Sunny Deol for Gadar. Again, I'm on the stage, and again, this is a bad place for me. Anyway, thanks a lot for everybody. wuxuu haystaa 2 abaalmarin oo National Film Awards ah, wuxuuna biladahan helay intii lagu guda jiray waayihiisa fanka. Sunny Deol sanadkii 1983 ayuu ku soo biiray Bollywoodka, wuxuuna ku soo galay filimkii Batab, waxaana adriisha ka ahayd Amrita Singh. wixii intaas ka dambeeyay wuxuu noqday xidig ay si weyn u jecel yihiin aflaantiisa taageerayaasha Bollywoodka. aflaantiisa uu ku caan baxay waxaa ka mid ah Tere Taaf, Arjun, Kayaal, Vishwatma, Dar, Jeet, Siddhi iyo kuwo kale oo badan. शाम भी खूब है पास महबूब है आशिकी के लिए क्या चाहिए. daawadayaal halkan waxaa idinku soo gudbi doonaa xaqiiqooyin u gaar ah Bollywood action hero Sunny Deol, kuwaas aad ka heli doontaan. magaciisa rasmiga ah waa Ajay Singh Deol, laakiin waxaad u taqaanaa magaca uu shaashada uu ku caan baxay ee Sunny Deol. sanadkii 1999 ayuu markiisa ugu horeeyay agaasime ama director iyo maalgeliye ka noqday filim, wuxuuna ahaa filimkii Dillaki, waxaana filimkan hogaamiye ka ahaa walaalkiis Baby Deol iyo qudhiisa. Sunny Deol waa shakhsi markasta ka kaabsada aana u badnayn meelaha ay iskugu yimaadaan jilaayaasha iyo warbaahinta. marka laga hadlayo noloshiisa shakhsiga, waxaa u dhaxda ama xaas u ah Pooja Deol oo 2 wiil ah u dhashay, waxaana lagu kala magacaabaa Karan iyo Rajbir. laakiin Sunny Deol muddo dheer xiriir jecel wuxuu kala dhexayn jiray adirishadii weyneed Dibal, taasoo markii dambe xaas u noqotay superstarkii Rajesh Khanna. waxaana xusid mudan Dibal inay sotoh u tahay Akshay Kumar ama Mr. Bond, waayo wuxuu qabaa gabadheeda Twital Khanna. Sunny Deol wuxuu xifrada iliinka ku soo bartay dalka England. तू बस उन जालिमों की शक्लें बताती जा, करते में मैं दो. aflaan badan oo dagaal ah ayaa ku aragnay Sunny Deol, wuxuuna markaas gudbinayay fariin nin dagaalyahan ah, balse marka laga hadlayo noloshiisa dhabta waa shakhsi edeb badan isla markaana hadal tabacsan sida aad ku aragteen filimadaba. तेरे चरणों की सौगंध barnaamijkan waxaan idin socodsiinayay पानी तक anigoo पीऊंगा Cabdi Cabdulaahi Cabdi जब Nadara. उसको किए हुए जुल्मों का